waxaan rabaa maanta halka inaan ka jeediyo appeal ama se codsi aan u jeedinayno hadaha caalamiga ah iyo wadamada deeqda bixiya donorska in ay jirto abaar bilaabatay gobolada Puntland dhulka hadda aan soo marayna dadku ay ka cabanayeen abaarta hadda jirta iyo midda soo socota maadaama waqtigii gugu ay bila ka dhiman yihiin waxaa hay-adda hadma oo noo qaabilsan ka hortagga abaaraha iyo musiibooyinku ay samaysay baaritaan ku saabsan dhibaatada jirta ama imaan karta maadaama abaarta Soomaaliya ay tahay mid mar walba soo laalaabata oo la og yahay markii dhowr sano la joogaba abaartu iska timaado haddana waxaa muuqata fafaalaheedii iyadoo waliba ay ku sababeynayaan in loo jeedo ilniinadu ay dhanna Soomaaliya ka abuurtay daadad oo ah koonfurta dhanka waqooyigana ay ka abuuri kartay ama se ka abuurtay abaar aan lagu talagelin ama se abaar la filayo inay ka xumaato abaarihii hore u jiray waxaa la sheegay in 65% dhulka daaqsinka ah ama se dadka miyiga ay degan yihiin abaartaasi ay saameynayso waxay noo sheegeen in 70% xoolaha Puntlandna ay abaartaasi ay saameyn doonto oo ay dhibaato gaarsiin doonto waxaa kaloo ay noo sheegeen in 213,000 oo qof oo u dhiganta 1,200,000 oo qof oo dadka reer miyiga ah ku nool Puntland abaartaasi ay dhibaato u geysanayso mushkiladaha abaartu keentay waxaa kamid ah iyadoo oo dadkii abaartu markay heshay xoolihiina qiimahoodii oo hoos u dhacay oo hadda aad moodo neefka xoolaha qiimihiisa shalay uu joogay qiimo yani kala barobar ah maanta uu joogo neefkii $100 joogay maanta $50 joogo marka dhan waxay ka haystaa dhibaato iyo xoolihii oo dhimanaya dhan waxaa ka jira biyo la-aan ay abaartu keentay dhanna waxaa ka jira xoolihii qiimahoodii oo runtii aada iyo aad isu dhimay waxaan rabnaa marka ka xukuumad ahaan dowladda Puntland dabcan waajib baa naga saaran mid dawliya mid diiniya waa naga saaran yahay dadka Puntland oo dhibaatada haysato in dowladdu u istaagto lahaatana qorshe ku aadan abaarta laakiin waxaan filaynaa rajaynayaa aan ogahaynaa in ay naga tan badan doonto oo dowladda Puntland kaligeed aysan awood u lahayn inay xaaladaasi ay wax uga qabato marka anagu dadaal baa nafaranka dowlad ahaan waana dadaalaynaa waana dadka iyagana waajib naga saaran weeye in aanu la qaybsano dhibaatada in aanu intii aanu ka fududayn karno ka fududayno laakiin waxaan rajaynayaa beesha caalamka iyo cid kasta oo arrintaas ka geysan karta gacan inay ka geysato insha Allah dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntlandna usii digno inay u diyaar garoobaan dad walaalahoodii inay abaartaasi hayso dhici doontana waqti aan dheereen hadii waqtiga guga hadda bisha waxa ku jira February waxaana ugu soo horeysay April ama May baan rajeynaya marka waqti dheer baa u dhaxeeya dadkuna intaas ma si awoodi karaan hadii abaar si ahaato in ay runtii ay si adkaystaan